أحبتي في الإسلام ننبا هو يدي قصة وحاورين يسجبر درس لا هيد هو يدا قري أي جوكت جبردان يدي النين كذا المهذا قري هذا وحاد درس لاها قل أن وحبا كدسنين إلا هل قلبا كدسنا وحيتري هو يدا ورمى يسجبردان وحان أركفيت كيبا لقب اللابو قل كي عضلها rag badan oo marna soo galaya marna ka baxaya hadii aan si fiiriyayna hawshu waa si badatay waan ka shakiyay habeenkii oo dhan bay soo jeeday ilaa saacadu labadii habeenimo ay ka gaadho markii dama markaan baqay waxaan u yeeray ayay tiri ninkaygii iyo wiilkeedii weynaa bay tiri bal arintan ka wardoona hadii la aaday waxa warku noqdo la keenay nin hooyadii iyo gabadhii la dhalatay ka soo cayriyay qolkii ay deganaayeen in meeshan dad muslimiin ay soo dejiyeen dadkan guriga soo galaya marna ka baxaya waa dad wanaagsan oo hooyadan caawinaya da'da tayib markay arintan khabarkii keeneen gabadhii ninkeedii waxay ka talabtay ii ogolow inaan soo booqdoon u tago haddii aan u tagay waxay tiri waxaan arkay gurigii waa hal qol waqtiga xilliga lagu jabayna waxay xilli qabow ah oo xilliyada barafka iyo qabowga uu dhacaayo qolkii waxaan arkay meelo badan inuu ka daldaloolo oo hawadii iyo qabowgii toos u soo galaayo waxaaba ka sii daran qolku xitaa musqul ma laha maalinkii labaad ayaa magaalada dadkii deganaa oo akhyaarta ahaa iyo culimadii iyo aa'imadii masaajidda oo iskaalmaystay baa wiilkii u tagay wiilka hooyadii muxuu uga soo saaray qolka wuxuu yidhi gurigan 4,000 oo riyaal buu joogaa oo lacagta sacuudiga ah 4,000 ama isii ama iskaga bax subxaan allah waxaa u yimid culimadii waxaa la wuri warniyow miyada alla ka baqayn warmiyayna qofkan hooyada adiga ahayn warmiyaan gurigan aabbaha ka dhimanin warmiyayna dhaxalka wax ku lahayn wa fi daaka alwaqt waxa la yaabka waxa weey inuu guriyo badan oo kala u lahaa wiilku qaar degan yahay qaar ijaar loogu jiray dadkii waxaa la yidhi warbaahrinimadii away hooyada loo samayn jiray wuxuu ku yidhi walaalayaal arrintan soo socota wuxuu yidhi qofka baari ahow adigu qaado hooyadan 4,000 anigaysi waxay arrintaa la mid tahay qof dhahaya man yashtari ummi bi 4,000 waryaa hooyada igaga iibsada 4,000 waa qof isagoo nool hooyadii gadaaya سعيد بن الزيد رضي الله عنه إسلام باكسو أشكتوتي حيك كسو أشكتوتي دول آن لها أيو بيرتيسي كدر صديتي ولي بعيل كان أنا قالي يدو هذا ملا أقول بسقال سكاله وبين أبو رشو عثمان بن عفان أمير المؤمنين تأوي يا سعيد وطبعا كي جنة اللو بشارية نكا مدا سعيد بن زيد أبا الأعور بركاسو لي والله قاسو دعوة يا سعيدو ويا قاسو دعوة سلام تابع قاسو دعوة دغضة وما حي قاسو دعوتي قل يدو أيلي ذا هاي بعد قادة تيبي يلا لي ومع العيل كايضالي يا أمير المؤمنين أنوحا كم مغلي نبي محمد عليه الصلاة والسلام أولي دول أولهين تاكد دول أولهين نك الظلم كو قاتبوا نبي قيري مالك القيامة وحن لقوا عقوبين دونا تضبط دول انتو سلسلة لوقو حلو آيا قورت لو قلين لورن دونا جيدو لكع لما نكعي كريو ما نو حديث كنبي محمد كهيو كم مغلي ما يقولتها حق بني آدمين عن ظلم كو قاتل إلهو حدا يقول بين أبو راني سبو يدي عندها كان قاد هدلن أضو عندها كان قاد موياني هل كان أي شيء قصي إله قد البيودي دول كي وقع كعي حق قادة بوليسية وإن دبش دم مركاسي أورنجرتي ويهبار كي سعيد با يقول داعي
way habaarkii saciid bin zayd baa igu dhacay iyadoo indhalo dhulkii ay ku sheegatay isaga wareegayso indhala ayay ceelkii ku dhacday bale ceelkii bay ku dhacday lagamaba soo saarin halkiiba qabrigayga laga dhigo lagu aasay xaqa bini aadanku ciyaar maaha ma anuu nabi maxamed ka maqlay taaka in la ego dhul xaqa naas ninka gardarro ku qaata toddobada dhul baa qiyaamaha qoorta loo geliyaa oo lagu yidhaahdaa la kacoo jiid lamana kici kara buu nebiguna ma jiidi karaayo maanuu xadiiska nabi maxamed ka maqlay may kula tahay cuhmaanu inaan dhul bini aadan aan xaqdarro kaga qaadan ilaahu hadday igu been abuuranaysay buuhi indhahana ka qaad halkaan ilaahu ku dil buu yidhi waxaasi waa alla ka baq waxa bini aadanka xaquuga kaa joojinaya waa maxay waa alla ka baq markaad ilaahay ku xisaabtamaysa inuu ku arkaayo uu ku maqlaayo aakhira inay jirtana ay ku hor taallo xaq bini aadan inaad u badheedhaa ku dhiiran maysid laakiin goormuu qofka bini aadanku ilaahayna uu dulmi ka galaa bini aadankana uu dulmi ka galaa waa markuu ilaahay iloobo aakhiradana uu khadka ka saaro وقصة إنا شيخ أي لقما مرمانته في هذا الباب من شيخ ومشايخ ذا غير مدينة وحضب النور واللي وأنا عالمة مهدي مدينة وكتبتك آخرها وأن فيلينا أن أهل خير إنه وحلو قليه إلى يومنا هذا من أكتهم كواء ولافي ولي ما أوسن قرسنين وحو قرسن واي سيدي ضدكي وريستي وحو كبقى يا قفك قرسده inay hooyadii isku dhacaan isaguna meelaan hooyadii agteeda ahayn ma seexdo yani ma doonayo meesha hooyadiis buu u khidmeeyaayo qolkeeda qol aan ahayn inuu seexdo ma rabo hadduu guursado marka xaq baa lagu yeelan waa inuu islaantii qol kale la tagaa waa in arrimahaas marka ma yeelin baa layidhi horta taas anigu kamaana maqan laakiin qisada aan maqlaan idii sheegay cajaa'ib tale qisada waxaa ii sheegay nin soomaali ah oo isagu yani dee sacuudiga ood garanaysaan kafiil ka yahay kafiil ma taqaanaa waa ilahay idinka xoreeyay idinka waxa waaye nin baa adiga mas-uul kaa waay inuu nin mas-uul kaa noqdo ayaad ku joogaysaa marka ninka kan nin sheekha oo soomaali ah iiga sheekeyna wuxuu yihi sheekhan waxaan isku aragnay meel jidda ah isagu reer madiina wey wuxuu yihi buu yihi sheekho waxaan rabaa yani nin darawala oo aad baan mashquul ahay hooyaday iyo walaalaha iyo gaariga ku kaxeeyo haddana ahla diina oo weliba usro leh baan doonaya sheekhana waan aqaanaa buu yidhi markuu saas yidhi buu yidhi anaaba diyaaraba waaya marka anigu magaalo kalean joogaa buu yidhi oo aada uga fogo januubka meel koonfurta khamiis bishayn meel yidhi buu yidhi imow madiina isugu keen almuhim tigirkii iyo wixii iyo lacagtii iyo wixii buu isiiyey buu halkaa inaan isugu tagno marka waxaan u imid buu yidhi inaan markaa ani kafaalada sheekha ku wareego oo dabadeedna khidmadiisii galo madiina iyo xaramka iyo khayrka inaan ka faaidaysto waan imid xaramkii baan sheekhi baan la kulmay sheekhiisuu isii waday meel hotel uu dejiyey buu yidhi lacag buu iga bixiyey wuxuu yidhi intaan kaaga jawaabayo ama haroos hawsha ka bilaabayno halkaa ku jir 4 bilood ilama hadlin buu yidhi maalin kasta sheekha waa sarkanaa waa yarkaa waa salaama waa iska tagaa waa iska ilama hadlin 4 bilood oo hotelkii lacagta bixinayo kadib ayaa wuxuu yidhi aan sheekhiis aragnay sheekh dee xaalku muxuu yahay horta waraaqihii wixii ay sameeyay buu yiri kafaaladii iyo wixii magaciisii wax dhan waraaqaha waa dhamaystiray shaqadii inaan bilaaban sugay ay yimid wuxuu yiri buu yiri dhageyso aniga hooyaday weligii intaan jiray hooyaday kelimada ay tiri kuma celin saas way hadday tiraa nacam khalad ha ahaato sax ha ahaato weligii kelimad dib uguma celin marka wuxuu yiri arrinta markii aan kaala hadlayay hore nin baa jira darawal u ah hooyaday oo reer wadankeena asalkiisu Mauritania yahay reer wadankeena ah ninkii marka xoogay markii dhaliisha ay timid oo inaan isagii aan iska sii daynay noqotay intii aan hawsha ku maqnaa adiga xaggaaga ninkii ba hooyaday ku cabtay oo yiri ma garanaysa hooyo sidan waay markii aan soo noqday hawshaadiina ay dhamaanaysa meel fiican ay noo marayso ay hooyaday waxay tiri waxaan doonaynaa ninkii hore inuu noo joogo ee iska daash ma oga buu yiri hooyaday inaan nin la soo ballamay oo lacag ka soo bixiyay oo kharaj galay oo adiga kula soo ballamay oo ma oga buu yiri anigana caadadayda ma aha buu yiri kelimad ay tiri inaan u jawaababa yani inaan la hooyo meeshii nin baan u yeeranay oo xaaladdu halkaas ay maraysaa igama suurtooda buu waxay tira un baa soconay marka saas awgeed iga raali ah
iga raallihow aniga meeshaas ma geli karo maadaama hooyaday tiri ninkii horaan rabnaa khalaas hadalkeedaa soconay adigu marka lacagtana qaado madiinana meeshaada iska joog sidii kalean kuula dadaalaya oo khayr laakiin booskaas ma geli kara ma ka suurtoobi lahayd nin waqtigeenoo kale zamankan jooga weliba oo zamanu tafatux iyo zamanka furfurnaashaha iyo dimuqraadiga iyo hadalka iyo wada dooda iyo alaabtan ay wada socdaan ma kaa suurtoobi lahayd say ku dhici kartaa nin baan la hadalay nin baan keenay oo xataa si wanaagsan xataa uga dhaadhicin karaa ma doonaayo waxay tiraan baa soconay marka walaalayaal xuquuqda waalideyntu waa arrin aada iyo aada u weyn ninkii ilaahay waafajiyo oo ilaahay subxaanahu watacaala siiyo xabdigiisa iyo nasiibkiisa uu ka dhigo aabihii ama hooyadii oo da-a oo u baahday ninkii ilaahay siiyo nicmaa ilaahay kuusoo xerogeliyey كالإمام مسلم في صحيحه وحكوري عائشة رضي الله عنها وحيتري جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها وحايتي متقبر مسكينة أو وحبان هيسن أو لبقى بدودو يرينا وضطه مركز باهبا هيسن علمي صوك عايزة عائشة ولتمت عائشة رضي الله عنها وحيتري waxaan siiyey saddex xabo oo timira ayaan siiyey waxa ay u heshaa waxay noqdeen saddex xabo oo timir ah ma ahan cantoobo ma ahan 5 xabo ma ahan 10 xabo saddex xabo ayaan u helay oo aan siiyey bayt fa'atat kull waahidatin minhuma tamra baahida haysa daraadeed labadii ilmood oo yaryarka ahaa mid kasta oo kamid ah xabad bay siisay ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها حبدي صدحاتنا وحي دمعدي إني عنتو كربي وقاضي هو يدي وي فاستطعمها ابنتاها لبدي قبضوت أيا لبدو دي حبا انتي عنين هو يؤا ولي عنين حبد دي أيا ويديستين إني سيسو كدقي فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها بينهما حبدي أي دوني سيني عنته يضعس أي لبدو دي مسنوك للقويسي أو لبدو دي أي سيسا أيضنا أي كقط فأعجبني شأنها بيت عائشة رضي الله عنها وحآدي عجب قلي أرنتي ده يضعس إيا النحريستي ده iyo daqnashada ku jirta ayaan aad iyo aad ula cajabay ayadoo baahan ayay xabadiina u kala goysay markaas ay nabiga u sheegtay Aisha radiyallahu anha oo tiri haweentaas maanta sidaas guriga timid xaaladeeduna sidaas ay ahayd markaas nabigu wuxuu yiri alayhi salatu wassalaam qad awjaba Allah laha bihima aljanna labada gabdhood sababtood ayaa ilaahay naar ugu janno ugu waajibiyay inay janno ilaahay ay gasho aw a'taqaha bihima min an-nar wa shakum min ar-rawi ilaahay ama wuxuu ugu xoreeyay labada gabdhood sababtood ayaa ilaahay naar ugu xoreeyay intaas naxariista ah oo ilmahaas baahan ay u daqnatay ayaa ilaahay janno ugu waajibiyay subhanahu wa ta'ala walaalayaal waxaan idiin sheegay hal qiso bir ah waa cibro dhulka qaarkiisoo lagu nafsaday hadda ka hor waxaa dhacday nin xaaji ahoo miskiin waa 60maadkii dhowr iyo 60kii nin xaaji ahoo Soomaaliya xaj ku tagay baabuuro iyo tareenno iyo diyaarado badan iyo waxaas ma jira wuxuu ka baxay Jidda Maka Madiino aad xaaskiisa yaa la socota markii uu ka soo noqday Madiina jidad laamiya xataa ma jirin dhulkaasu fakhri buu ahaa waagaas ayaa askari jidka istaajisay nimankii askarta ahaa ee bointigaa joogay islaantii baa hunguri ka galay xaajigaas watay way dejiyeen labadoodiiba markay dejiyeenna waxaa islaantii waa lagu xadgudbay way iska aamustay odagii dhinac baa la geliyey iyadana dhinac shibay tiri waxay tiri ama odagana lagaa dilaa balaayo kale intii ku raacdo ceebtii iyo xadgudubkii ama haddana odagana lagaa dilaa ya iska aamustay markay soo dhowaadeen oo gaariga ka soo baxeen meeshii ayay odagii u sheegtay odagii baa baxay
ani xaadisada waxaa ii sheegay nin odaya oo da' ah oo soomaali ah oo dhulkaas dadkii ku koray 100 sano ka hor xijaaz waxaa dhacday marka maxaa dhacday ninkii oo dee cirdigiisii lagu xadgudbay oo caraysan oo miskiina baa yimi wuxuu imaaday jidda subaxdiiba wuxuu tegey safaaradda soomaalida safiirkii buu laha wuxuu ku yidhi saasaa igu dhacday waa muwaadin soomaaliya safiirkaa madaxuu ruuxay waraaqihii weli maanan geyno waxbaa maaragtay weli wasaaradda iyo kama aanan soo dhammaano meermeersi saas bal waa fiirinayna xaaladda waa fiirinayna nin odayaashii soomaaliyeedoo hore ah oo dhiigga lahaa oo dadnimada lahaa oo cizada iyo sharafta yaqaane ayaa hortiisa fadhiyey intuu ishayn waayey buu dharbaaxa safiirkii kaga soo gooyey labada indhood buu jaray kaasuu yidhi kayra mas-uul dameer ah baa tahay muwaadin baa kuu yimi cirdigiisii lagu xadgudbay waxaad meesha u fadhidaa isaga khidmadiisa weeye markaasaad leedahay nyiic soo baa ninkii buu gacanta soo qabtay nin la yaqaanana wuu ahaa soo kaxay wuxuu u keenay boqor faysaloo markaas wuxuu yahay amiir dalkan xijaaz markaa mas-uulkaa isaguu soo geliyey dhegaysu yidhi ninkaan dhegayso ninkii talada wixii buu u sheegay faysal wiilkiisii kulli waa dhinteen hadda sacuud alfaysal la dhihi jiray wasiir khaarijiye ahaan jiray oo markaa wiil yarahoo isaga la shaqeeya u yeer kaalay suuno bax diyaarad helicopter hal diyaarad bay haystaan qaado 4 nin oo askarta meeshaas joogta soo xira keena taxqiiqiya arrinteeda ii soo ogaaday wax yar haddii la keenay nimanka la soo qabtay wuu baxay ninkii nimanka uu soo tusay waa la keenay xoogaa haddii la juqjugayey waa qirteen arrintii horagu gooye buu yidhi afartoodaba ha la salbiyo hana la dilo afartiiba waa la dilay markii la dilay ayaa maydaankii qisaasta jidda lagu samayn jiray dad baa yaqaanay reer xijaaz joogi jiray yaa maydaanulbayca meel la yidhaahdo jidda bartamaheeda ku taalla waxaa jirtay dadka qoorta qisaasta lagu sameeyo ama xuduudda lagu oofiyo halkaa ha lagu salbiyaa yidhi dadkoo dhamme ha daawadaan wax dhowr iyo 8 meelahaas asbuuc wax ku dhowey meesha 4 askari saarnaayeen iyagoo meyd ah taas baa waxay keentay iyo xawaadista la midka ah baa waxay keentay in qofku dukaankiisa dhulkaas xijaaz markay ammaanka inuu marada intuu saa u saaro dukaanka aanu quful ku xirin iska dhaaf waxa ku jiray quful aanu ku xirin xataa albaabka ma xiray mara un buu saa u saari bas salaaduu aadi masaajidku aadi mana ka baqayo miftaax yar insaan looga qaado waxaa dhacay gaf way gacanta maqan nina ku dhici maayo in la salbiyo dhulka ammaan weeye marka ma fahamteen xikmadda inamaa jazaau aladiina yuxaaribuuna allaha warasuulahu wayascawna fi اlardi fasaadan an yuqataluu waa in aad loo dilo buu leeyahy ilaahay waa siiqatu mubaalaqa aad in loo dilo maxaa dhacay tuugga qaatilka ah hadduu nabad galo kun kala ka dambeeyo iyana wax dilaaya qabiilku hadduu hoos gashado oo yidhaahdo qisaas laga oofin maayo oo la xiri maayo oo la dili maayo hadduu yidhaahdo qabiilku ha ogaado qabiilka laftigiisa kun kale in laga dilaayo bikayri xaq ay ka dhimanayaan hal qof bay qisaastiisa diideen fasahaadda ay samaynayaan bal eeg odayaashaas qabiilkaas reerkaas fasahaadda ay isugu kaalmaynayaan taas wey walaa tufsiduu fi اlardi bacda islaaxiha haddaad diiddo qisaadda dhulkaad fasahaadisi beri annagoo soomaaliya joogna waxaan ayaa waata khuruujka waxaa leedahay yaa khuruuj baxaya waxaasaa leedahay mogtahay dabadeed mid baan su-aalin baa iga timid oo waxaan wareerdhe qole oo qadar ka timidna waan ahayn mogta waxaan war boqor baa shaqo doonaye boqor ayaa shaqo doonaye ma shaqaynaysaa marka reer qoyi buu ahaa xooli wuxuu u qaatay marka boqorka qatar iyo kan sacuudiga waxaas u qaatay ha war waan shaqaynaya waxaan boqorkaas
imisaad u shaqaynaysaa 4 bilood u shaqaynaysaa 4 bilood oo khuruujaan rabaa ma 4 bilood 4 bilood waa 4 sano iyo 40 sanana waa la joogay 40 sanana waa la joogay su'aal buu weydiiyey wuxuu yidhi muxuu siinayaa buu yidhi muxuu mushaar siinaya waxaan boqorkaa haddaa u shaqayso laba mid weeye shaqo khaas haddaad u qabato shaqaale khaas oo noqotidna bilaa xisaab weeye laguba xisaabin maayo bahasha intaad doontaad qaada haddaad boqortooyadiisa ka shaqaysatana dee waxoogay baad leedahay bil kaste ama maalin kaste muqadar oo kuu noqon ani meeshaan ka socda ma taqaanaa waxaan ka socdaa aayaddii maxay ahayd inamaa yuwafa asaabiruuna ajrahum bigayri xisaab waa shaqaalaha khaaska mogta kuwaas saabiriinta ilaahay diintiisa u taagan leylan wanahaaran waa bigayri xisaab iyagu looma xisaabiyo boqortooyadiisa kuwa iska agjogjoogana ulaa'ika yanaaluhum nasiibuhum min alkitaab lawxulmaxfuudka waxay ugu qornaa meeqa xaboo rooti imise xaboo bariis iyo imise xaboo badar waa u qoran yihiin intaasay qaadanayaan laakiin kan isagu shaqaalaha khaaska ah waa bilaa xisaab in allaha yarzuqu man yashaau bigayri xisaab taasaan ka wada ani mogta isagu ma oga ilaa hadda wallahi waa arrin wanaagsan markaa su-aashii rasmiga ahayd baa timida wuxuu yidhi oo boqorkaasi tolow ma qadar baa ma boqorka sacuudiga ma qadar baa mayaan ku idhi hadda maka sacuudiga maya maka baxrayn baa maya khaliijku soo marmaray adugu yuu magacyadooda sheegay maya intaaba ma oo waa boqorkee waxaan boqorkaasi sacuudigana isagaa iskale qadarna isagaa iskale baxraynna isagaa le kuweydna isagaa le ay yurub iyo maraykan iyo ingiriis iyo kullina isagaa iskale dhulka iyo cirkana isagaa iskale oo marka uu gartay mugta war sheekho waad ii soo dusisay buu yidhi waad ii dusisay laakiin nin fiican buu ahaa hadda ninkaasi jaad buu iibinayey suuqa jaadka ah jaad buu gadayey jawaan jaada u yaal laakiin fitrada soomaalida fiiri wanaaggeeda wuxuu yidhi waad ii dusisay kowdhe oo sidan laakiin meelaan ka noqdo male wallahi meelaan ka noqdo male markaan ogaaday boqorkaasi inuu ilaahay yahay inaadaa imika shaqayn maayo ma yeeli kara buu yidhi markaad soo dhammaysataan jawlada isoo mar waan raacaya ficlan waana raacay wuxuu yidhi meelaan ka noqdo male ma haddaan odhanaya ilahay uma shaqaynayo ma garata marka waxaa lagaa rabaa inaad ilaahay tiraa ilaahayow shaqaale e qor khaas ku ah oo diintaada u khidmeeya oo idinka dhexdiina isku dadaan oo kuwan kale ee kaafiliinta ahee mulxidiinta ah diinta ilaahay ugu yeedha qasooyinku saan idiin sheegay oo iska badan yihiin xajkii dhoweyd berigii dhoweyd xajkii hadda ahaa baa nin sheekho masri oo isku wadan ka nimid qatar ka wadan baa hadlaya mawduuc wuxuu ku keenay garan maayo waxayba ahayd maalmihii xajka laakiin mawduuc cajaa'ib le yani sheekada buu ka bilaabayba dad badan buu la hadlaya wuxuu yidhi masar meesha masar la yidhahba cimaaro waa taqaanaan bilding weyn ayaa gubtay bahal baa ku qarxay waa gubatay cimaaradii o dhan waa gubatay bel waa isla hortay waxaa ku nool buu yihi ka mida dadka ku nool reer ka kooban qof dumara oo caruur leh oo weliba mid ilmo markaas naaska ay nuujinayso oo radiica iyo hooyadeed oo duq ah ayaa la nool intaas ninkii guriga lahaa ma joogo waa ka maqan yahay dabkii baa qabsaday suu u socday gurigii buu gaaray gurigii markuu gaaray dabkii baa qabsaday waxay noqotay markaa in laga cararo inay ilmihii la fakato marka ilmaheedu waa badan yihiin marba mid bay daftaa waa la fakataa marba mid waxaa isku soo gaaray isku qabsaday buu markii ugu dambeysay dabkii iyo qaraxii ugu weynaa iyo hooyadeed iyo ilmihii ay dhashay oo markaa radiic ahaa naaska nuugayay mid hadday qaada ka kalena qaraxii baa ku dhacay gaaskii wixii dhan baa isqabsaday marka waa arrin khatar ahoo waana mowqif xasaasa wey khatiira kana ilmahan waa beerkeedii kana waa hooyadeed keebay marka wuxuu yihi sheekhu ilaahay wuxuu waafajiyey inay ilmihii iska dayso hooyadeed ay qaado hooyadeed ma socon karto hooyadeed bay daf tiri la booday markaasay meeshii ku tuurtay ay kula cararaysay gurigii kale
sidaadii ay yeeshay baa qorigii isla qarxay, qolkii oo dhan, shaqadii oo dhan baa bug, ma la soo geli kara marka. iyadoo markaa indhaheeda oo shano ay arkayso ayaa meeshii isla dambasta noqotay. ilmihii yaraan oo ku jira, dadkii waa la farxay, waa meeshii waa loo, laakiin iyadii ma farxi karto, dee ilmaheedii oo naaska nuugayay bay ka soo tagtay. laakiin maxay badbaadisoo yidhi sheekh wuxuu noogu dhaartay, sheekh muwaafi baa leedahay, wuxuu yidhi markii la yimid qoladii dabdamiska yimaadeen, ayib meeshii wada dambas bay noqotay. wixii bay marka soo inay kala qaadqaadaan oo bal wixii ilmihii fiiriyaan. sheekha ilaahay magaciisuu ku dhaartay, wallaahi buu yihi waxaa loo tegay ilmihii yaraa oo sidiisii u ooyaya oo wax tinna ayna ka guban, meel la waxba ka gaadhin, guriga intiisii kale xataa sariirtii uu ku jiifay dambas bay noqotay. ilaa ilmahaas yaa badbaadiyey allah rab اlcaalamiin. nabi ibraahim qulnaa ya naaru kunii bardan wasalaama calaa ibraahim, soo mahay qaadirun calaa kuli shay, waa dabaan waxba reebaynin. ilmaha yar ilahay baa badbaadiyey, lakin muxuu ku badbaadiyey? sabab bay leedaho, waa sababta hooyadeed. doorashada ay dooratay inay hooyadeed ay ma aragtay doorbido, ilmaha ka doorbido, ayaa ilaahay subxaanahu watacaala ku badbaadiyay ilmahaas. waxaa kugu filan daacada waalid la ateecayo samafalkoodu halkay gaadhsiisan tahay. qisada ilaahay inooga warramaya nebi ibraahim iyo nebi ismaaciil. ilaahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamayaa nebi ibraahim in ilaahay u waxyooday inuu wiilkiisii ismaaciil ahaa qalo iyadoo la itixaamayo. dabeetana inankiisii muu u soo dhuumanin, mana luqunjubaadhin, waxba kala toona kuma samayne, war cad buu u sheegay oo ah yaa bunaya innii araa fi lmanaami annii adbaxuk fandur maada taraa. wiilkaygiiyow ama wiil yarahaygiiyow, waxaa riyo laygu tusay, wa ru'ya alambiyaai waxy, waxaa lay faray inaan ku gowraco, ee bal maxay adiga kula tahay buu weydiinaya. waxaa la weydiinayaa nebi ismaaciil waxa weeyaan waa lagu gowracayaa iyo say kuula muuqataa. isna wuxuu leeya yaa abat ifcal maa tu'mar satajidunii in shaa allahu min aلsaabiriin. aabba wixii alla ku faray yeel, waxaad i heli doontaa haddii rabbi xukumo anigoo ka mida inta sabirta. wuxuu ku ateecayaa aabbihii inuu gowraco bireeyo. wax ka sokeeya markaa maxaad u malaynaysa? wax ka sokeeya nolosha halkay gaadhsiisantahay haddii ilaahay uu rasuulkan ku tilmaamayo inuu aabbihii ku ateecay inuu gowraca aqbalo. idan labada waalid samafalkoodu waa min addiin, waxaanay ka mid tahay waxyaabaha ugu waaweyn ee ilaahay qur-aanka inugu faray, nebiga calayhi salaatu wasalaam sunnadiisuna in badan ay tilmaamayso. iyadoo loo samafali waayana wuxuu nebigu ku tilmaamaya inuu malcuun yahay. malcuun inuu yahay labada waalid ninka caaq ku noqda, ama axaadiista waxay ku tilmaamaysaa kabaa'irta waaweyn inay ka tirsan tahay cuquuqulwaalidaynku. sidaa awgood waxaan waxoogaa ka tilmaami doonaa waxoogaa axaadiisa oo nebiga calayhi salaatu wasalaam ka sugnaaday oo uu tilmaamaya mansilada ay gaadhsiisan yihiin. saxaabigii la odhan jiray xaarisata bnu nucmaan, xadiidka ibnu xibbaan warinayo, sheekh alalbaanina saxiixa ku tilmaamayo, wuxuu nebigu leeyahy baynamaa ana aduuru fi ljanna samictu sawta qaari faqultu man haada faqaaluu xaarisata bnu nucmaanin kadalika albir. anigoo jannada maraya buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam ayaan sawt qur'aan nin akhrinaya maqlay. dabeetana waa kuma baan idha waa xaarisata bnu nucmaan baa la yidhi. yani nebi maxamed wuxuu tilmaamayaa wiilkani samafalku kadalika albiri buu nebigu ku tilmaamayay. waxaa kuugu filan inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam ku tilmaamay taabiciintaba ninka ugu fadli badani inuu yahay. ina khayru taabiciin rajulun yuqaalu lahu uways walahu waalidatun wakaana bihi bayaad famuruuhu falyastakfir lakum. taabiciin waxaa u khayr badan buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam nin uways la yidhaahdo. ninkaa wuxuu nebigu ku sifeeyey hooyuu lahaa, waana u samafali jiray. baras buu qabay, cudurkan caddeeya dadka diirka ka roga. ilaahay buu baryey subxaanahu wa tacaala, dabeetana ilaahay waa ka fay. wax
kaleu nebigu tilmaamaya saxaabadiisii buu ku leeyahy haddaa aragtaan dembi dhaaf ilaahay noo weydi ku dhaha cumar bin alkhadaab baa wuxuu raadiyey xadiidka saxiixu muslim ku yaalla markay reer muraad ama qabiil yaman u dhashay markay yimaadeen ayuu ka dhex raadiyaa madadkii iman jiray ciidamadii ku socday frontka dagaalladii jihaadka ahaa ayuu weyddiin jiray war maydinku jiraa ninkaas akhiiran waa loo tilmaamay xadiidka lafdigiisu waa dheeriya isagoo kooban baynu tilmaamayna waa loo tilmaamay wuu helay ninkii war barastii ninka ka bogsaday barta yara cadi ku hadhay adiga maye haa wuxuu yidhi ilaahay rasuulkiisii baan maqloo warkaa sheegaya ii ducee markaasuu u duceeyey kadib buu cumar waa amiiruulmu'miniin wuxuu yidhi xaggaad ku socotaa aan waaliga muslimiinta ee hore gobarnarka muslimka ee meesha aad ku socoto xukumaya aan waraaq kuugu qoree waxaan ka jeclahay buu yidhi waxaad sheegayso fii khabraa'i innaas inaan ka tirsanaado dadka inta aan la dareemin inta aan la buunbuunin qofka muslimka ahi wuxuu jecel yahay alle agtiisa inuu ku weynaado laakiin dadka weynidoodu qiimo badan ma leh saa awgeed buu taabiciga kani wuxuu leeyahay waxaan rabaa inaan layba ogaanina aan sidaa ku tago xadiidkii waad la socotaan waan idin sheegayaa waa xadiid muhima oo baabkan ku saabsan 3 nin oo reer bani israa'iila oo safara ayaa waxay roob baa ku soo da-ay waxay is dhaheen buurtan hoosteeda ka gala roobkan meeshaasay galeen ama halkaasay u baryeenba aawow halkaasay u hoydeen buur hoosteeda god ku yaal bay u hoydeen buurtiibaa dhagax weyn ka soo dhacayoo afkay ka oday waa maqasheen xadiidkan u wada malaynaya kulligiin badin waa ku xidhmay khalaas 3 halkaasay ku jiraan jawaal iyo telefoonna lama haysto mobile dadka lagula hadlo ama ambalas loogu yeerto ama askar loogu yeerto fa maxay sameeyeen itasaluu billah rabbi bay la hadleen subxaanahu wa tacaala ninkii bilaabay 3dooda waxay dhaheen horta war 3diinu waxay idin badbaadin kara maanta male ilaa aada ilaahay ku baridaan mid walba u camalkaada is leedahay waa camalkii ugu muhiimsanaa ee rabbigaa kaaga raalli noqday maanta ku bari ka un baa ku badbaadinayay nin baa hadalka bilaabay wuxuu yidhi allahuma ilaahayow kaana lii abawaani 2 aabbaan lahaa 2 aabba macnaha aabbihi hooye waayo abawaan haddii aada maqasho fi luga alcarabiya waa takliib weeyaanoo waxa weeyaan ab iyo hooyaa loo jeedaa abawaani kaana lii abawaani kabiiraani oo duqahoo da-ahoo gaboobay labaduba waxaana caadadayda ka mid ahayd buuda dhaqankayga ka mid ahaa marka reer baadiya la iska ahaayo reer baadiye weeyo wuxuu yihi xoolaha markaan soo galbiyo habeenkii oon soo noqdo oo aan caanihii aan liso caanihii maalo iyaga cidna kama hormarin jirin hadda waa inaan caanihii uqaybiyaa ilmihii iyo xaaskii iyo wax soo ma iyagaan ugu horreysiin jir cid iyaga ka horreyso cabi jirtay caanaha ma jiraan wa kuntu laa akbiqu qablahuma ahlan walaa maala marka maalin baa foofkii ila fogaaday buu yihi xoolaha waan soo daahay way seexdeen iyagoo seexday 2 waalid baan imid buu yihi caanihii waa usoo lisay qadaxii ama gaawihii aan kusoo lisay baan wadaa marka iyagiina waa hurdaan ilmihii waa soo jeedaan dadkii kale o dhan waan soo jeedaan marka 2 shayba waan diiday buu yihi kow inaan caadadaydii aan gafo oo aabbaha iyo hooyadii cidna ka hormariyo taama yeeli kara buu yihi inaan hurdada iyagoo hurdada ka kaciyo oon kaala caanihii cabba iyadana waan diiday buu waa ii suurtageli wey xalkii muxuu noqday inaan habeenkaas oo dhan taagnaado buu yihi qaa'iman habeenkii oo dhan waa taagan yahay ma fadhiya xataa waa dul taagan yahay iyagoo horda gaawihii oo caanaha ku jirayna wuu hayaa gacmuhu ku haya ilmihii waa ooyayaan oo caanihii nasiibay leeyihiin warkooda ma dhagaysanayo wuxuu sugayaa markay soo kacaan goormay soo kaceen goortii fajarkii ay ahayd salaadii subax markaasay soo kaceen markay soo kaceen buu caanahoodii siiyey wuxuu yihi ilaahu arrintaas haddaan adiga dartaa u yeelay ufruj cana maa naxnu fiih arrintan aan ku dhex dhacnay dhibaatadan ilaahu maanta naga fayd dhagaxii biamrillaahi tacaala meeshii buu ka dhaqaaqay duleyl buu baneeyey lakiin kama bixi karaan 2 kale la sugaya warkay keenaan 2 kale la sugaya kii labaad wuxuu yihi isna arrin cajaa'ib buu sheegay gabadh baan jeclaa buu yihi ina adeertaya
oo aan raggu say u jecel yihiin haweenka sida ugu badan aan u jeclaa jacayl xun oo aan fiicnayn buu ahaayo waxaan doonayay buu yidhi inaan maaragtay faaxisho iyo zina ku sameeyo aydana waa diiday waxay tihi xaaraan ma abadan lagama yaabo wuxuu yihi mudda markii ay diiday zaman waxaa yimid kulul waa la abaar waa la gaajooday waa la rafaaday ka bacdi iyadoo miskiinaho baahan gaajo awgeed ayay igu timid waxay tiri buu yihi haddaan ogolahay bal waxaad rabto sameeyo isii wuxuuna siiyey markaasaan wuxuu yihi siiyey 120 diinaar oo dahaba ayaan siiyey si ay iigu ogolaato arrintii horay ay iiga diiday markii ay ogolaatay oo dabadeed aan isla khaali noqonay oo aaban dusheeda aan fadhiyo ayay waxay tiri buu yihi ittaqi illaah ilaahay ka cabso walaa tafud alkhaatama ila bixaqihi khaatamkan ama furahan ha jabinin ila bixaqihi waa guur yani adoo nikaaxsanin arrintan ha samaynin ayay igu tiri buu yihi ittaqi illaah marka tiibaa qalbiga iga taabatay buu yihi markaasaan meeshii ka kacay farahan ka qaaday lacagtiina kama ceshanin oo waan u daayay ilaahay oo arrintaa haddaan adiga dartaa u sameeyey fafruj cana maa naxnu fiih dhagaxii marka ilaahay arrin u aqbalay bay ahayd horay u ogaa subxaana dhagaxii meeshii waa ka durkay laakiin kama bixi karaan kii saddexaad baa la sugaya kii saddexaadna arrin cajaa'ib loo sheego kale wuxuu yihi ilaahayo waxaan soo kiraystay dad ujaro oo ii shaqeeya shaqaale markay shaqadii ii dhameeyeenna nin walbaba shaqaayadii uu lahaa iyo mushaharkiisii baan siiyey nin baa iska diiday waxoogay waxiisa lugay yiri war naga tag waxaan maxay yihiin isaga tag waxaan aqi waa tagay xoolihiisii xoogaygiisii uu lahaa ajrigiisii shaqaayadiisii mushaharkiisii maalinta ayaan u kobciyey buu yiri oon u midho maalay cidna kuma khasbin wuxuu yihi ajirkiisii intii yareyd lacagtii yaree uu lahaa baa ilaahay u barakeeyo geel fara badan iyo lo fara badan iyo ari fara badan iyo addoomaa la iibsan jiray oo fara badan intaasoo xolo ah ayuu noqday beri danbu u yimid wuxuu yihi ya cabdallah addi ilaya ajri hadda isii waxoogayga aan berigii aan saluugeyn ka cararay markaasaan ku iri bu ma aragtaa geelaas iyo lo-da iyo ariga iyo raqiiqa addoommada iyo waxaasoo dhan adaa iskale qaado markaasuu yiri ya cabdallah laa tastahzi bi haygu jeejeesin anigu jeejeesan miskiin aan ahay waxoogaygeeni iyo mushaarkaygeisii xoogaygi maalintii aan ku shaqaysaysay waxaan oo dhan mali may kugu jeejeesi maayo intaa aad arkaysoo dhan lacagtii yareedeed ka tagtay baa kuu dhashay adaa iskale qaadaan ili weli markaasuu yihi fastaaqahu waa wada kaxaystay oo falam yatruk shay-an shayna kama tegin ya mid isna inkaar qabo midha halkaas ma oran xataa neefka war awrkan ama neefkan arigaa xataa bal intaa dadaashi iyo waxa aad qabatay u qaada bedelkeed ma oran kulli waa wada qaatuu yidhi falam yatruk shay-an shayna muuna ka tegin anoo arkayo wada qaatay ee ilaahayow haddaan aniga arrinta aan dartaa u sameeyey adiga dartaa u sameeyey muxuu ka wadaa yani maalintaa hadduu xoogaygii lacagtii uu lahaa keliya siiyo ma cid baa u eedsan lahay miyuu ka warhayaa kani ma og yahay kan waxaan oo xoolo ah in lacagtiisii ay dhashay ma oga iska tag hadduu yidhaaho xoogaygiisi uu siiyo cidna uma raacateen laakiin adiga dartaa baan arrintaa u yeelay buui haddaan saa nahay ilahu naga fay dhagaxii fog meesha waa ka baxay saddexdii ninna waa iska tageen hadda muxaadarada barnaamijka khuseeya kee waaye kii hore waay so mid walba waa mid cajaa'ib leh oo yaab la waay laakiin kii hore labadiisa waalid markaad si u fiirsato ninkaasi wuxuu la yimid xaqii ugu weynaa buu la yimid lilwaalideyn oo waa maxa dee waajib kuma aha qasab kuma aha sharcigu kuma qasbin waa ixsaankii lana faray weeye ixsaanku waa fawqa ma huwa matluubun minka farad ku ama ah waa wax oo isagu dheeraadu samaynayo inuu ilmahan gaajaysan ee cabaadaya ee qaylinaya inuu hormariyo caanahaasi maadaama aabbihi hooye ay seexdeen wax dhibaataha kama soo gaadheen walaakiin xaqooda uu dhowrayo iyo arrintaa uu waajibka isaga dhigay aabbihii iyo hooyadii cid ka horeysa inuuna caanaha saynin ayuu diiday inuu jabiyo aan tilmaamno abaa hurayre iyo qisadiisii saxaax ku soo aroortay abuu hurayra wuxuu leeyahay hooyaday baan u yeedhi jiray oo diinta ugu yeedhi jiray gaalad bay ahayd markaan diinta ugu yeedhanayana nebigay wax ka sheegi jirtay isagu wuxuu leeyahay kaalay oo islaamoo diin buu ugu yeedhayaa
iyana waxay ugu jawaabaysaa canaadnimo waxay ka qabto marka kan inay nebiga calayhi salaatu wasalaam wax ka sheegto anoo ooyayaan haddana nebiga u tagaa buu yidhi calayhi salaatu wasalaam markaasaan idhaahdaa ilaahay rasuulkiisiiyo hooyaday baan diinta ugu yeedhay dabeetana wax xun oo adiga ku saabsan bay i maqashiisa ilaahay ii bari buu abu hurayra leeyahay nebi maxamed in ilaahay hooyaday hanuuniyo ilaahay ii weydii nebigu calayhi salaatu wasalaam intuu gacmaha kor u taagoo rabbi baryey buu wuxuu leeyahay allaahumma hdi umma abi hurayra ilaahayow hanuuni abi hurayra hooyadii anigoo ducadii nebiga ku faraxsan buu yidhi baan dib u noqday markaan gurigii ku dhowey albaabkii ayay qajaftayda maqashay hooye sanqadhii bay maqashay guryuhuna albaab ma lahayne waa daah yaroo la iska duwo markaasay ku tidhi waar halkaaga joog markaasaan maqlay buu yidhi biyaha sanqadhoodii biyay isku shubaysaa ilaahay ducadii nebi maxamed buu aqbalay oo way islaamtay oo dabeetana gaalnimadii bay ka maydhanaysaa abu hurayra intuu soo socday bay islaamtay markaasaan ay tidhi buu yidhi halkaaga joog kadib markii ay qubaysatay ay tidhi soo gal buu yidhi waxay igu tidhi yaa abaa hurayra ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxammadan cabduhu wa rasuuluh anigoo farxad haddana ooyayaan ku noqday buu yidhi nebiga markii hore isagoo ooyayo wixii nebiga laga sheegay iyo hooyadii gaalnimada haysatay ku ooyayuu yimi iminkana anoo ooyayaan nebiga ku noqday buu yidhi calayhi salaatu wasalaam markaasaan idhi buu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyo bushaarayso rabbi dacwadaadii waa aqbalay nebigu calayhi salaatu wasalaam intuu ilaahay ammaanay oo khayr yidhi buu ayaan haddana abu hurayra wuxuu leeyay waxaan ku idhi ilaahay rasuulkiisiiyo waxaad haddana ii baridaa anigiiyo hooyadayba in ilaahay dadkana jeclaysiiyo addoommaha alle in ilaahayna jeclaysiiyo nebigu calayhi salaatu wasalaam mar kaluu abu hurayre u duceeyey xadiidka saxiixu muslim buu ku yaallaya allaahumma xabib cubaydaka haada yacni abu hurayra wa ummahu ilaa cibaadika almu'miniin waxabib ilayhim almu'miniin nebigu wuxuu ugu duceeyey ilaahu addoonkaaga kan addoonyarahaaga kan abaa hurayre ah isaga iyo hooyadiiba ilaahu ummaddana jeclaysi iyaguna ay jeclaadaan abaa hurayre waa idinkaa arkay oo xadiidka abaa hurayre laga waayo dadku maba rumaysna in badan idan waa jacayl loo qabo nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam uu ugu duceeyey waxaan leenahay ilaahay u bari diin ugu yeedh raalli ahaanshahooda raadi oo wax ay ka damqadaan haba yaraatee culammadu waxay dhahdaan xuquuqul waalidaynka markay tacriifinayaan waa wax uu kahado waalidka ayoo aad sheegta bay idhaahdaan ayankaan saa awgeed baa nebigu wuxuu leeyay calayhi salaatu wasalaam rida arab fii rida alwaalid wa sakhatu rabbi fii sakhati alwaalid ilaahay raalli ahaanshihiisi wuxuu ku jiraa waalidka raalli ahaanshihiisa cadhada allena waxay ku jirtaa cadhada waalidka baa la yidhi waalidka haddaad ka cadhaysiiso waxay u dhowda inaad rabbigaa ka cadhaysiisa